salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaada ciyaaraha oo aan ku faaqidi doonno kulamadii ka dhacay Premier League sida kooxda Manchester City oo sidii ciyaar socod barad oo kale dadax tiri kooxda Arsenal oo joogta istaadiyaheeda Emirates Stadium kama marno Manchester United oo nasiibka uu hakiyay xilli barbardhac gool iyo gool ah ay la gashay Everton oo ay ku marti qaaday Old Trafford iyo duriyadii reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo ku dirdirisay kooxda Indonesia oo marti ku noqotay istaadiyaha Allianz iyo waliba magaalada Turin ciyaar ka tirsan horyaalka Serie A Talyaaniga kulamadaasi oo dhan ayaana ku faaqidi doonaa barnaamijkeena inta uu hawada ka baxayo ugu horeyn laagsar muuqaalkan sabskraib dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel ciyaartii ugu adkaydna isbuucii 17aad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxay ahayd tii u dhaxaysay kooxaha Arsenal iyo Manchester City taasi oo ka dhacaysay Emirates Stadium waxaana Gunners hoyga ay ka degan tahay waqooyiga London ay ku marti qaaday koox isbuucii dhaweyd ay ku qaqashaday iyadoo joogta istaadiyaheeda Etihad Stadium kooxda Manchester United isla markaana caraysan illibaxyo caraysan ay yihiin xidigihii uu watay Pep Guardiola waxaaba lagu yaqiinsaday isla markii seeriga koobaad uu ka yeeriyay garsooraha reer England ee Paul Cherny oo maxaa yeelay waa ay kala dafeen ciyaartooydii uu ku soo shartagay macallim Lampard waxaana ay ula ciyaareen Broniga sidii caruur socod barad oo kale oo waxay dhaheen Arsenal dadax in dhibaato iyo jab u joog ay tahayna Arsenal waxaaba lagu yaqiinsaday 15 daqiiqo ee ugu horeysay ka gadal markii isla daqiiqadii labaad ee ciyaarta Bononi dhaafay oo ciidda cunaya uu geeska ka soo laagay Gantal Chelsea isagoo hakinin lugtiisana waxaaba ku dhirbaaxay shabaqadii uu wardiyaha ka ahaa Bernard Leno Kevin De Bruyne cadeeyayna in goolkiisa uu yahay sida doonto u toogo So Arsenal could have scored and Manchester City have scored. Kevin De Bruyne who got the goal of the month from last month up at Newcastle's and he shows it yet again. What a player he is, Kevin De Bruyne. marka iyo wixii ka dambeeyayna ciyaartooydii uu ku soo shartagay Pep Guardiola waxaa ka dhacday haddii ay ku ridaan shabaqada Leno in ay booqanayaan oo 13 daqiiqo kama soo wareegan in Gunners oo marti loo ahaa goolkii labaad loo celiyo ka gadaal markii sidii si lamida Kevin De Bruyne uu geeska ka soo laagay Bononi aad u cajaa'ib badan isagoo hakin lugtiisana waxaaba goolkii Arsenal la helay orodheeraha reer England ee Raheem Sterling Manchester City pick their passes. reer Arsenal marka iyo wixii ka dambeeyay waxa ka dhacday in habeen caana iyo alalaas aysan kaga soo horeynin Emirates Stadium ay qaabilayaan dirbana waxay bilaabeen in boorka ay iska jafaan dibna guryahooda ay ugu laabtaan oo maxaa yeelay waxay arkeen koox dayac badan uu ka muuqdo hal Pierre-Emerick Aubameyang oo layslahaana wuxuu noqon doonaa furaha ciyaarta wuxuuba ahaa kaaba marqaati oo wuxuu marqaati ka noqonayay waxa ka dhacaya Emirates isla markaana uu samaynayo daymankii reer Belgium ee Kevin De Bruyne oo Kevin De Bruyne oo aad mooday in uu yahay libaax aad u caraysan oo baahan dhiigo jiqo ayaa mar kale haddana goolkii Bernard Leno ka toogtay meel ka baxsan diilinta garaaxa ilaa iyo ugu dambeyntii halkaasi uu ka dhaliyay Bononi sidii garaangartii oo kale u wareegay xagashana ka galay goolka Still trying to get Saka on. Arsenal 0, Manchester City 3. City haven't seen much of Phil Foden. He's got his assist here.
oo 40 daqiiqo gudahood ayaaba Arsenal looga dhaliyay ilaa iyo 3 gool ciyaartana waxayba soo dhamaatay isla qaybtaasi hore oo maxaa yeelay Arsenal si waliba oo ay u xariiftanta xitaa waa awoodi weysay inay la timaado goolka calanka waxaana cadaatay dhinac kasteetaba in khibrad la'aan ay ka jirto xagga macalinka waqti xaadirka kan iyo wixii ka dambeeyana waxa xogles iyo xuudinba ay ku hayaan Carlo Ancelotti iyo sidoo kale haryaygoodii hore ee Mikel Arteta oo qayb ka ah maskaxdii dishay Arsenal iyadoo joogta Emirates Stadium xagga iyo horyaalka Serie A Talyaanigana waxaa soo martay xilli kale oo duriyadii reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ay ku durdurisay kooxda Udinese ciidana ay la sintay xilli ay marti ku noqotay istaadiyaha Allianz ee magaalada Turin waliba Juventus iyo Ronaldo in meel ay u socdaan waxaaba loo jihaystay isla daqiiqadii 9aad ee ciyaarta ka gadaal markii Ronaldo uu dafay Bononi ay isku qabsadeen mid ka mid ah difaacyada iyo Paulo Dybala ilaa iyo ugu dambeyntiina uu ku shubay goolkii Udinese. Wonderful technique from Cristiano Ronaldo. That's 4 goals in as many games. And Mario really is, once again, getting back to his best. And that was a quite stunning finish. Stunning finish, but it was also a good run. tilaabo waliba oo la qaado waxa la arkayay Bononigii xadaarada watay ee laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo istaadiyaha Allianz wati laga kacay oo la yiri kani waa 20 jirkii reer Portugal iyo waliba kooxda Bianconeri oo maxaa yeelay waxay ahayd waqti kale oo aad u fircoona laacibka reer Portugal ee Ronaldo isaga ayaana camiray masraxa ay ka dhacaysay ciyaarta sida uu u eeriyanayna ciyaartooyda Udinese waxay ahayd wax la yaabo oo daqiiqadii 37 Ronaldo oo bandhigiisii halkiisii ka sii wada ayaa Bononi basleera ah wuxuu u soo dhigay Gonzalo Higuain waxa wareeyay wana uu ka dhaxfuucay dhamaan difaacyadii kooxda Udinese ilaa iyo darba aad u kulul uu ku riday goolkii uu wardiyaha ka ahaa Musa si waliba uu kaga daba dadaalana waa awoodi waayay in Bononigaasi banaanka uu u saaro. Just watch the movement for Ronaldo. Should the attitude found the pass as well, but Higuain becomes the playmaker. Great movement. wariyaqeen reer Juventus laakiin farxadooda waxaba u sii 3 jibaaray difaacooda Leonardo Panucci oo Bononi madax ahaa goolka ku hubsaday. laakiin gool haya Gianluca Buffon dabayaaqadkii ciyaarta qaasatan daqiiqadii 9aad waxa Bononi aan la filaynin ku riday Posetto oo halkaasina ka keenay goolkii calanka ee kooxda Udinese. dhinac kastaba Juventus waxa soo martay maalin kale oo aad u weyn isla markaana ay gaadhay guul weyn oo noqonaysa 3 gool iyo gool walina waxay diyaar u tahay u dagaalanka in ay noqoto horyaalnimada Serie A Talyaaniga. Cristiano Ronaldo isagana wuxuu noo cadeeyay wali inuusan gabin masraxyada kubadda cagta diyaarna u yahay inuu galo tartan cusub oo yaa lagugu maqlin waa gaboobay boqorkii reer Portugal. ciyaarta kale ee firmada gaarka loo lahaa marka la eegana xagga Premier League waxay noqonaysay midii u dhaxaysay kooxaha Everton iyo Manchester United waxana ay ahayd ciyaar dhinac kasteetaba ay ku gacan saraysay kooxda martida loo ahaa inkastoo halkaasi ay kala kulantay barbardhac niyad jab ah oo gool iyo gool ah waliba United goolkii koobaad waa tii shabaqadiisa uu ku shubay Victor Lindelof laakiin waxa gool u soo celiyay kooda Mason Greenwood oo la dhigi karo waaba da'yar haatan u soo kacay kooxda uu wato macallim Ole Gunnar Solskjaer sababta ugu weyn ee guul ay ku gaari waysay kooxda Everton iyadoo dhinac kasteetaba ugu wacnaydna waxaa lagu tilmaamayaa in ay tahay nasiib oo maxaa yeelay Manchester United ayaa 67% ciyaarta maamuleysay goolka Evertonna waxay ku laageen ilaa 8 darbo
taasi oo ku muujinaysa sida Manchester United ay u diyaarsanayd laakiin ugu dambayntii waxaaba lagu hakiyey barbardhac gool iyo gool ah. ugu dambayntiina haddii aynu eegno kala saraynta horyaalka Premier League dalka Ingiriiska weli waxaa ka madax ah isbuucii 17aad kooxda Liverpool oo haysata 49 dhibcood oo nadiif ah 10 dhibcood ayayna ku haysaa waqti xaadirka kan kalinta koobaad oo iyada ka madax ah. kalinta labaadna waxaa ku jirta Leicester City oo haysata 39 dhibcood halka Manchester City-na ay soo socoto oo ay ku jirto kalinta saddexaad iyadoo haysata 35 dhibcood. afraadna waxaa fadhisa Chelsea oo aad moodaba in golinkeedu xuma uu u bilowday waqti xaadirka kan waxaana ay haysataa 29 dhibcood waxaana ay qaabishay 2 jug oo xiriir ah. kalinta shanaad waxaa soo fadhiisatay Tottenham oo haysata 26 dhibcood halka Manchester United-na ay fadhiso kalinta lixaad iyadoo haysata 25 dhibcood. kooxda Arsenal oo ay ceebaysatayna kooxda Manchester City iyadana waxay fadhisaa kalinta sagaalaad iyadoo haysata 22 dhibcood waxaana ay u muuqataa in xilli ciyaareed xanuun badan ay qaabilayso tan iyo markii magaca Premier League la bixiyay. guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah.